ka dhagaysa raadiyo barnaamij wararka ka dhaca dunida dacaladiisa adigoo joogta hoygaaga amaba goobtaada shaqada ka dhagayso 88.3 megahertz. haddaba dhegayste wararka raadiyo baraawe waxaad dhegaysan kartaa saacadaha kala ah 7:00 subaxnimo, 1 duhurnimo, 4 galabnimo, 7 fiidnimo iyo 9:00 fiidnimo. cabdiwahaab aadan abdiraxmaan radio baraawe muqdisho. zaakir cusmaan xasan radio baraawe hargeysa. liibaan qaran radio baraawe boosaaso. maxamed yaasiin madi maxamed deeqalfa radio baraawe jowhar. cabdulaahi maxamed ibraahim cabdulaahi simane radio baraawe gaalkacyo. ibraahim yuusuf maxamed rasmi ruuxi radio baraawe degmada walaweyn. maxamuud ali cabdulaahi raadiyaha baraawe baydhabo. محمد ابن حبيب راديو براوي دقمة أفقوي. إسماعيل محمود إسحاق مره راديو براوي ولا وين. أنا فيصل فاتح راديو براوي مقالة مقدشو. كدغيس راديو براوي ورarka ka dhaca dunida dacaladiisa adigoo joogta hoygaaga amaba goobtaada shaqada ka dhagayso 88.3 megahertz. warbaahinta raadiyo baraawe waa warbaahin madax bannaan oo dhexdhexaad ka ah siyaasadda caalamka ka dhagayso mowjada dhererkeedu yahay 88.3 megahertz. saxafigu harweeye maxaa xaqiraya isagoon xumaan gelin xabsi loogu qoraya baadi loogu xiraya xubbu ku sidaayo xaqaagu u doodaa ku xurmay sidaasoo ha xasuuqi wariyaha xog dhamaysa iyo xaaladaha dunida xaqiiqdooda buu soo tabinayaa ku xurmeeya shaqada ha xasuuqin wariyaha wuxuu daydayaa xaqiiqda xogtii adig kaa dahsoon inaad hesho waa xilkiisa xabsi kaama mudno xaq bay kugu leedahay xor weeye saxaafaduye ha xasuuqin wariyaha xiska iyo maankiyo xilkasnimada hodanka ah xaq dhowr bayna farayaan kaddaa xasuuqa suxufiga. warbaahinta raadiyo baraawe waa warbaahin madax bannaan oo dhexdhexaad ka ah siyaasadda caalamka ka dhagayso mowjada dhererkeedu yahay 88.3 megahertz. oo kaddaa xasuuqa suxufiga. warar xaqiiqo ah sida ay u dhacayaan iyo meesha ay ka dhacayaan ku dhagayso dhagahaaga kana dhagayso raadiyo baraawe 88.3 megahertz. radio baraawe manda iigi waa isha wararka Soomaaliya. saacadda iminka goorsheegtada waxay soo dul istaagtay xilligii aad noogu barateen dhagaystayaal war wixii dal iyo daafaha caalamka idin laga soo gaaray ee raadiyo baraawe.
kulan wacan dhegaystayaal wararka waxaa ugu waaweyn madaxweynaha koonfur galbeed oo guddi u saaray dilkii caruurta ra-iisul wasaare Rooble iyo midowga musharaxiinta oo kulan yeeshay heshiis ka kooban 12 qodob oo laga gaaray ciidankii ka soo horjeeday muddo kororsiga dalalka G7 oo hogaamiyayaasha Soomaalida uga digay doorasho hal dhinac ah Shariif Sheekh Axmed oo taageeray tallaabada ciidankii diiday muddo kordhinta looga qaadayo Muqdisho Xasan Sheekh oo taageeray dadaalada uu wado ra-iisul wasaare Rooble weerar khasaare geystay oo ka dhacay gobolka Gedo iyo xubin ka tirsan xisbiga dan qaran oo Muqdisho lagu dilay ciidamo la kala dhaxdhigay maleeshiyada ku dagaalamay gobolka Hiiraan ayaad maqli doontaan saraakiil ciidan oo tababar loo soo xiray Itoobiya waxa ay sheegtay in ay fashilisay afgambi ka dhan ahaa xukuumadda Abiy Ahmed Ciraaq oo martigelisay wadahadal u dhaxeeya Iiraan iyo Sacuudi Carabiya intaasi waa qodobada wararka iyaga ugu dooron u diyaar garooba wararkaas oo fidsan وريهم magaaladii Barawar u socda oo hadaad u socotidna afartiisan xilbaanimada la isoo doortay dhamaatay hadana afar kala rabaa ilaa ay laaluush xabsadaan kuna gooyaane ayar goorma kugu dambeysay magaalada Barawar ma dheera 3 sano ka hor 3 sano isku beegan ayay kaligood badsadeene la beeradaga bal arkayta mauda afartii sana aad joogtay maxaa dadku u qabat wax qabad iska daaya anigay teedu ay haysataa maxaa tu kala dusha noo saaray shariko soo baxoosa bawdiyaani jabti kulmiya ku jirtaan fadlan xilliwan barasho wacan afada ka soo wada baxo shaqta xubintina oo xuma sadaqaxso xisa orolaya hagaag dhagaystayaal waa 6 May sanadka 2021 warkii oo dhan madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa magacaabay guddi baaris ku meel gaar ah oo natiijo dhab ah ka keena kiiska caruurtii walaalaha ahaa ee lagu dilay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay wariyaha Muqtaar Aadan oo wararkaasi la socday ayaa inoo sii ambaqaadaya madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa magacaabay guddiga baaris ku meel gaar ah oo natiijo dhab ah ka keena kiiskii caruurtii walaalaha ahaa oo lagu dilay magaalada Baydhabo ee gobolka Baay war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen magacaabis guddi baaris ku meel gaar ah ee dilkii labada aruur xeer madaxweyne tira nambarkeedu yahay eber 49 kuna saabsan magacaabis guddi baaris ku meel gaar ah ee dilkii laba aruur oo ka dhacay magaalada Baydhabo madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen markuu arkay dastuurka dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya qodobkiisa 48 farqadiisii koowaad markuu arkay guddi ku meel gaar ah oo soo baara isla markaana ka soo saaray natiijo dhab ah kuna saabsan dilkii labada aruur oo taariikhdu markay ahayd 7 bisha Abriil 2021 sanadkan ka dhacay magaalada Baydhabo oo ah caasimadii ku meel gaarka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed markuu tixgeliyay muhiimadda ay leedahay in xalkama dambeys ah laga gaaro dilkii laba aruur wuxuu soo saaray xeerkan magacaabis guddi baaris ku meel gaar ah wasiirka wasaaradda cadaaladda dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Xasan gudoomiye wasiirka diinta iyo waqaafka dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya wasiir Saalax Shariif Said Ali xubin aadan Cabdullaahi Macalin Xaajiine xubin Malaaq Ali Malaaq Xasan Ali Qatar xubin Maxamed Sheekh Aadan Bilow xubin Professor Abdi Salaan Axmed Malla xubin gaashaana dhexe Maxamed Xuseen Axmed xubin gaashaanle Ibraahim Cabdiraxmaan xubin gaashaanle Muuse Maxamed Xasan xubin xeerkan wuxuu dhaqan gal noqon doonaa markuu saxiixay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen wuuna saxiixay wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
sideedda bishii abriil ayaa meydka labada caruur ah oo u dhalay xildhibaan hore macalin awees cabdulaahi oo ka tirsan baarlamaanka federaalka ah ee soomaaliya maamulka koonfur galbeed oo u qabtay falkaasi 6 ruux oo dhowaan maxkamad la horkeeni doono. madaxweynaha hirshabelle cali guudlaawe xuseen ayaa hoygiisa muqdisho waxa uu kulan kula qaatay ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble madaxweynaha galmudug iyo midowda musharaxiinta. kulanka ayaa looga arinsanayay xaaladaha guud ee dalka ka jira iyo sidii loo dardargelin lahaa howlaha doorashooyinka dalka. madaxweynaha hirshabelle cali guudlaawe ayaa sheegay inuu wado dadaalo xoogan oo looga arinsanayo masiirka dalka si heshiis looga gaaro qabsoomidda doorasho loo dhan yahay. maalmaha soo socda ayaa waxaa la filayaa in magaalada muqdisho ay kulamo wadatashi ku yeeshaan xubno ka socda xukuumadda midowda musharaxiinta iyo madaxweynayaasha galmudug iyo hirshabelle. hagaaga dhegeystayaal markana aynu eegno heshiis ayaa laga gaaray xiisadii colaadeed ee maalmihii lasoo dhaafay ka taagnayd magaalada muqdisho waxaana laga soo saaray shalay galab kulankii ay yeesheen ra-iisul wasaare rooble madaxdii hore ee dalka iyo guddigii farsamada ee loo xilsaaray kasoo tala bixinta xaaladda ciidankaasi. in dhammaan ciidamadii ku yimid xiisadaha ka dhacay magaalada muqdisho dib loogu celiyo goobihii ay ka yimaadeen loogana saaro magaalada muddo 48 saacadood ah oo ka bilaabanaysa maalintii shalay ahayd oo taariikhdu ay ku asteysnayd 5 bisha 5aad 2021. 2 in xuquuqda ciidamadaasi sida mushaarka darajooyinka iyo xilalka wax saameyn ah ku yeelanin qalalaasii ka dhacay magaalada muqdisho loona raacan karin wax ku saabsan dhacdadaas. 3 in si gooni ah loo xaliyo saraakiisha leh duruufaha gaarka ah sida darajooyinka mushaaraadka iyo xuquuqda kale ee ciidan. 4 in kalsooni laga dhex abuuro hay-adaha amniga iyo siyaasiyiinta qaba tabashooyinka amni. 5 in ra-iisul wasaaruhu soo saaro wareegto uu ku farayo taliyayaasha ciidamada qalabka sida. 6 in aysan ku milmin arrimaha siyaasadda. 7 in aysan bixin amaro ay ka dhalan karto qalqal amni iyo mid siyaasadeed. 8 in la magacaabo guddi khubaro ciidan ah oo kala taliya ra-iisul wasaaraha dib u habeynta ciidamada qaranka. 9 in aan ciidamada qalabka sida loo adeegsan arrimo siyaasadeed faragelinna lagu samayn. 10 in dhammaan dhinacyadu ay joojiyaan ficilada iyo hadallada abuuri kara colaad iyo nacayb. 11 in la soo celiyo gaadiidka iyo hubka gaarka loo leeyahay ee lagu kala qaatay dagaaladii ka dhacay muqdisho lana soo daayo dadkii loo xiray. 12 fulinta qodobada waxaa mas-uul ka ah ra-iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa. haddaba heshiiskaasi kadib waxaa warbaahinta la hadlay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya maxamed xuseen rooble waxaana uu yiri waa maalin farxad weyn iyo guul u soo hoyatay shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka magaalada Muqdisho oo aan rajaynayo inay maanta wixii ka bilowda ay nabad ku naalaan doonaan nabadii hore u jiri jirtay ay dib ugu soo noqon doonto. waxaan rabaa halkaan inaan ka xuso far kaliya foolma dhaqdo. waxaan rabaa dhammaantiin inaad mas'uuliyadda ila qaadeen guddiga fulinta guddiga waa inuu igu daba galaa oo hawsha sidii loogu rabo ugu qabtaa madaxweynayaasha hore. waxaan ka codsanayaa madaxweynayaasha maamul goboleedyada iyo ra'iisul wasaarihii hore iyo musharaxiinta dhammaanteen mas'uuliyadana saaran rooble kaliya lagu halaynin sababtoo ah doorashaad ay dirsateen inaad wadiin maamulo cadaalad iyo si nabadgelyo si xor ay u dhacdo. marka tan haddii liisi saaro hadda taasaan gacantayda ka baxayso. marka waxaan rabaa gacan ayaad kaga baahanahay insha Allah haddii aysan waa doontii dhinac ka duleeshamin. marka gacan ayaan kaga baahanahay shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka Muqdisho waxaan leeyahay idinkana gacan ayaan kaga baahanahay. maanta wixii ka dambeeyo mas'uuliyadda amniga waxaan rabaa inay adkeeyaan hay'adda booliiska Soomaaliyeed oo ah hay'adda ugu sarreeyay amniga magaalada sugayso. waxaan rabaa hay'adda booliiska Soomaaliyeed ciidamada booliiska Soomaaliyeed inaan amro faro inay ilaaliyaan amniga muwaadinka Soomaaliyeed, inay ilaaliyaan amnigayga, amniga madaxweynaha, amniga musharaxiinta iyo amniga qof kasta oo Soomaaliyeed. saa darteed waxaan rabaa inaan cidna lagu xadgudbin, cidna dhib loo geysan, in la ilaaliyo kaliya oo amniga qof kasta oo Soomaaliyeed. marka taas ayaan farayaa. waxaan kaloo rabaa halkaan inaan ka sheego walaalahay musharaxiinta ah insha Allah waa idinka ballan qaadayaa inaan qofna xigsan doonin.
waa idinka ballan qaadayaa in doorashadaasi xor iyo xalaal ay ku dhacayso marka insha allah qalbigiina khayr u sheega laakiin gacanaa idinkaga baahanahay haddaan araggiina haddaan waayo hadda biyaha meeshaasay ka soo galaan la socda ciidamada waxaan leeyahay inay sida ugu dhaqsiyaha badan goobahooda ay ku noqdaan ayaan farayaa qof ciidana oo lagu xadgudbayo ma jiro ciidanku ma lahan xaafid iyo mucaarad ciidanku ma lahan kana qaldanaa iyo kana saxsanaa ciidanku waa ciidanku waa ilaaliyaha guud ee qaranka ciidanku waa la dagaalaha al-shabaab argagixisada al-shabaab marka waxaan leeyahay ciidanka midnimada adkeeya. dhinaca kale madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ayaa waxa uu yiri waxaan soo dhaweynayaa heshiiska laga gaaray rabshadihii ka dhashay muddo kordhinta anigoo codkayga ku biirinaya in ciidamada qalabka sida ee geesiyaasha aan marnaba la siyaasadayn oo ay ku laabteen xarumahoodii waxaan kaloo bogaadinayaa dadaalada ra'iisul wasaaraha xukuumadda iyadoo aan ka rajeynayno in heshiis laga gaaro doorashooyinka iyadoo lagu saleynayo heshiiskii 17 Sebtembar waxaan ku celinayaa mar kale in gacmaha la isku qabsado sidii looga gudbi lahaa marxaladan adag ee kala guurka ah iyadoo wax kasta lagu bixinayo dib u heshiisiin isqancin iyo isku tanaasul. dhinaca kale madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa soo dhaweeyay dadaalada iyo shaqada wanaagsan ee uu wado ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble guddiga ka soo shaqeeyay hawshan dhinacyada badan lahaa iyo dadkii ay la soo kulmeen oo dhan oo talooyinkoodii ay ka soo aruuriyaan una dhaga nuglaaday ayagana inay dhageystaan oo ay muxuu ahay go'aanadanna ay la soo qaataan annagu nabadaan rabnaa dowladnimaan rabnaa dimuqraadiyadaan rabnaa in hore loo socdo oo doorashooyinkii sida qaanuunka iyo dastuurku tilmaamayo dib uga dhacsanna inaanan ka daahinaan rabnaa muddo dheer saan laguma sii jiri karo inaan hore u soconnaan rabnaa waxaan rabnaa in wax kastoo caqabad ah oo ra'iisul wasaaraha inuu xilkiisa iyo hawshiisa guto ku ah caqabad ama muxuu ahay culays in waddada laga leexiyaan rabnaa taasi waa ballan hore aan ugu wada ballan dhammaanteen hawshaas hadday naga dhammaato waa alxamdulilah aad iyo aaday u mahadsan yihiin guddigu saraakiishii ciidamadu ayagana aqbalayna aaday u mahadsan yihiin annaguna intaas hadday iswadato annaguna aqbal waaye waxaan rabaa ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogto inaan u sheego waxa socda iyo nabadda socotaa iyo dalkii inuu nidaamkii dib ugu soo laabtay waa ku faraxsannahay waa uga mahad celinaynaa waana bogaadinaynaa ra'iisul wasaare Rooble inuu hawsha halkaas ka sii wado garba ayaanan u nahay cawaya casir waa u taagannahay wixii fududaynaayo dalkan doorasho nabada oo xor iyo xalaala inay ka dhacdo colaad iyo buuq iyo shoobarana aanay marna dhicin waa u taagannahay intaasaanan kala shaqaynaynaa intaasaanan nalagu ogyahay dadka Soomaaliyeedna ha ogaadeeno nabadaa jirta colaadi ma jirto xumaan ma jirto qof qabta ma jirto dalkan qaanuunka iyo waddadii saxda ah lagu ridaa la wada qabay haddana waa la isla gartay in lagu rido inta dhimanna dagaalkeedaan la imaanaynaa waana la dhammaystiraa aad iyo aad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu hagaag dhegeystayaal markana aynu eegno weerar khasaare geystay oo ka dhacay gobolka Gedo warar dheeraad ah ayaa waxa ay ka soo baxayaan dagaal culus oo degmada Ceelwaaq oo ka tirsan gobolka Gedo ku dhaxmaray ciidamada Kenya oo ka tirsan howlgalka midowga Afrika ee AMISOM iyo xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab wariyaha Cismaan Aways Baxar Diini ayaa wararkan la socday warar dheeraad ah ayaa waxa ay ka soo baxayaan dagaal culus oo degmada Ceelwaaq oo ka tirsan gobolka Gedo ku dhaxmaray ciidamada Kenya oo ka tirsan howlgalka midowga Afrika AMISOM iyo xubno ka tirsan dagaalamayaasha ururka Al-Shabaab dagaalka ayaa yimid kadib markii sida la sheegay xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab ay weerar qarax ku bilowday ay ku qaadeen saldhig ciidamo ka tirsan kuwa Kenya ay ku leeyihiin degmada Ceelwaaq waxaana halkaasi ka dhacay dagaal xoogani dadka degmada qaarkood ayaa waxa ay soo sheegayaan inay maqlayeen dhawaaqa rasaasa ay isku adeegsanayaan labada dhinac sidoo kalena uu jiro khasaaro dagaalka ka soo gaaray labada dhinac balse aysan bixin karin faahfaahin dheeraad ah sidoo kale
dadka degmada waxa ay sheegeen inay cabsi ballaarani soo wajahday inta uu dagaalka socday maadaama ay ka baqdin qabeen inay waxyeelo ka soo gaaro dagaalkaasi. dagaalamayaasha ururka al-shabaab oo ka hadlay dagaalka ayaa waxaa warar lagu qoray baraha internetka ee taageera al-shabaab ayaa waxaa lagu sheegay in weerarkaasi lagu dilay askar uu ku jiro sargaal laba xidigle Kenyaan ah walow aysan jirin war madax bannaan oo xaqiijinaya sheegashada dagaalamayaasha ururka al-shabaab. wararkii ugu dambeeyay ee naga soo gaaraya degmada Ceel Waaq ee gobolka Gedo ayaa waxay sheegayaan in ciidamada Kenya ay halkaasi ka wadaan dhaqdhaqaaqyo ciidan maadaama saldhigga ay ku sugan yihiin la weeraray. magaalada Muqdishona waxaa lagu soo waramayaa in xubin ka tirsan xisbiga Dan Qaran Muqdisho lagu dilay. kooxaha hubaysan ayaa degmada Wadajir ee gobolka Banaadir waxa ay ku dileen xubin ka tirsan xisbiga Dan Qaran oo uu hogaamiyaha ka yahay musharax madaxweyne Daahir Maxamuud Geelle. qofka la dilay oo lagu magacaabi jiray Aways Cumar Salaad ayaa sidoo kale waxa uu ka tirsanaa saraakiisha ciidamada asluubta Soomaaliyeed waxaana lagu dhex dilay gurigiisa oo ku yaala degmada Wadajir. hogaamiyaha xisbiga Dan Qaran ahna musharax madaxweyne Daahir Maxamuud Geelle ayaa ugu tacsiyeeyay qoyska iyo ehelada uu ka baxay marxuum Aways Sheekh Cumar Salaad. ilaa iyo hadda ma jirto cid sheegatay mas'uuliyadda dilka loo geystay sarkaal ka tirsanaa ciidamada asluubta oo xisbiga Dan Qaran ah ha yeeshee dilalka qorsheysan ee degmada ka dhaca ayaa waxaa inta badan sheegta ururka al-shabaab. gobolka Hiiraan ciidamo ayaa la kala dhexdhigay maleeshiyaad ku dagaalamay gobolkaasi. ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan guutada 5aad qaybta 27 iyo maamulka gobolka Hiiraan oo iskaashanaya ayaa kala dhexgalay laba maleeshiyo beeleed oo walaalo ah isla markaana uu dagaal ku dhexmaray deegaanka Baladul Nuur ee gobolka Hiiraan. Mukhtaar Aadan ayaa warkan intaasi ka sii dheereynaya. ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan guutada 5aad qaybta 27aad iyo maamulka gobolka Hirshabeelle oo iskaashaday ayaa kala dhexgalay maleeshiyad beeleed oo walaalo ah isla markaana uu dagaal ku dhexmaray deegaanka Baladnuur ee gobolka Hiiraan. bilowga dagaalka ayaa salka ku hayay lahaasho dhul beereedyo oo midka kale uu sheeganayo. taliyaha guutada 5aad ee qaybta 27aad ciidanka xoogga dalka Colonel Maxamuud Xasan Ibraahim Baakay ayaa sheegay in la kala qaaday maleeshiyaadkii dagaalamay isla markaana deegaanku hadda uu nabdoon yahay. waano labada dhinac ah ayaa hadeer socoto waxaana ammaanka deegaanka lagu dagaalamay ee Baladnuur iyo Dabaan oo dhamaantooda hoos tagta deegaanka Harcaday oo qiyaastii 7 kiiloomitir dhinaca galbeed kaga beegan magaalada Baladweyne ayaa la wareegay ciidanka xoogga khasaaro dhimasho iyo dhaawac badan leh ayaa ka dhashtay dagaalka ka dhacay deegaanadaasi waxaana baaqyo isdaba joog ah ka soo saaray waxgaradka iyo mas'uuliyiinta maamulka gobolka Hiiraan. saraakiil ciidan ayaa tababar loo soo xiray sida wararku ay sheegayaan. mas'uuliyiin ka tirsan maamulka dowlad goboleedka Galmudug saraakiil iyo kan degmada Gaalkacyo ayaa ka qayb galay xiritaanka tababarka aqoon kororsiga oo ay ka qayb galeen saraakiil ka tirsan ciidanka booliska ee maamulkaasi. tababarkan oo soconayay muddo 12 cisho ah waxa lagu baranayay habraaca ka hortagga dambiyada iyo baaristooda waxaana xiritaanka ka qayb galay wasiir ku-xigeenka wasaaradda cadaaladda Maxamuud Guure Guuleed, taliyaha saldhigga booliska degmada Gaalkacyo laba xidigle Cali Xirse Sahal, taliya xigeenka qaybta booliska gobolka Gaashaanle Maxamed Xasan Warsame. taliyaha saldhigga booliska degmada Gaalkacyo laba xidigle Cali Xirse Sahal ayaa ka mahadceliyay tababarka ay bixiyeen qareeno ka socday dowladda federaalka Soomaaliya ee la siiyay saraakiisha booliska degmada Gaalkacyo wuxuuna kula dardaarmay saraakiisha in hawshooda ay ku dabaqaan aqoonta durugsan ee ay ku qaateen tababarkaasi. agaag dhegeystayaal warar kale ayaa inoo soo socda oo ay ka mid yihiin dalalka G7 oo hogaamiyayaasha Soomaalida uga digay doorasho hal dhinac ah. Itoobiya oo sheegtay in ay fashlisay afgambi ka dhan ahaa xukuumadda Abiy Ahmed iyo Ciraaq oo martigelisay wadahadal u dhaxeeya Iiraan iyo Saudi Arabia. wararkaas ayaa inoo soo socda dhegeystayaal hase ahaatee qadar nasasho. Stay
استغريا جوكس كلاو مش war maxaa dhacay yaa ibna tilaha badiya mujidun taakuso ilka kana oo xabada la fududa war wadada way xiran tahay dib u laabo askari qof xaamilo baan wadaa askari intu kila manaaska xaamila wariyaa iga joogso soo moogid inaan loo ogolaan magaalada habeenkii gawaarida dib u laabo oo xageen marayna waxaa la yiri sidee xiga loo xagtaa ilkana ku nabad galaan waa muhiim in wadada la maro amaankana la sugo maslaxadda shacabka iyo danta madaxda way isku xiran yihiin waa in la wada ilaaliyaa amniga in la sugo waa muhiim jidkana lagama maarmo hagaag isku soo noqod wanaagsan dhageystayaal dalalka G7 oo hogaamiyaasha Soomaalida uga digay doorasho hal dhinac ah ayaanu eegi doonaa wasiirada horumarinta iyo arrimaha dibadda ee dalalka G7 ayaa sheegay inay si aad ah ugu walaacsan yihiin jahwareerka siyaasadeed ee ka taagan Soomaaliya isku dhacyadii rabshadaha watay ee u dhaxeeyay dawladda iyo xoogagga mucaaradka iyo musiibooyinkii bani'aadanimo ee ka dhashay rabshadahaasi Ismaan Baxar ayaa warkan intaasi ka sii dheereynaya wasiirada horumarinta iyo arrimaha ee dalka G7 ayaa waxay sheegeen inay si aad ah ugu walaacsan yihiin jahwareerka siyaasadeed ee ka taagan Soomaaliya isku dhacyadii rabshadaha watay ee u dhaxeeyay dawladda iyo xoogagga mucaaradka iyo musiibooyinka bini'aadanimo ee ka dhashay rabshadahaasi dawladaha G7 ayaa waxay sheegeen inay sidoo kale ka xumaadeen go'aankii lagu kordhiyay muddada madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo taasoo ay ku sheegeen inay u arkayeen inaysan xal u ahayn geedi socodka doorashooyinka isla markaana ay wiiqaysa kalsoonida nabadda mustaqbalka dadka iyo horumarka hay'adaha dawliga ah waxaan soo dhaweynaynaa ayaa la yiri ansixintii baarlamaanka ee 1 bisha March ee ahayd dib u bilaabista wadahadaladii u dhaxeeyay dawladda federaalka iyo madaxda maamul goboleedyada kuwaasoo ujeedkeedu yahay in la dhameystiro hanaanka doorashada ee ku saleysan heshiiskii 17 Sebteembar ayaa lagu yiri bayaan arbacadii ka soo baxay shirkii wadamada G7 ee ka dhacay gudaha dalka Ingiriiska waxaan hoosta ka xariiqaynaa inaynan taageeri doonin geedi socod barbar socod ah mid aan loo dhameyn ama dadaalo cusub oo horseedayo kordhinta mudxuleedka waxaan ku buurinaynaa dhammaan madaxda Soomaaliyeed inay aad isku xakameeyaan oo ay ka fogaadaan ficil kasta oo hal dhinac ah kaasi oo sababi kara in xasiloonida siyaasadeed ay ka sii daraan waana muhiim in dhammaan dhinacyada inay ilaaliyaan amniga iyo xasiloonida Soomaaliya ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka ay soo saareen dawladaha G7 bayaankani ayaa madaxda Soomaalida loogu baaqay inay si degdeg ah ugu laabtaan wadahadalada doorashada isla markaana ay galaan dood wax ku ool ah ayna raadiyaan xal waxtar leh oo horseedi kara heshiis guud oo laga gaaro arrimaha harsana haddii ayna taasi dhicin waxay horseedi doontaa in bulshada caalamku wax ka bedesho qaabka ay u wajahayso Soomaaliya ayaa lagu soo gabagabeeyay warmurtiyeedka ka soo baxay shirka wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka ku bowowhay G7 kaasi oo dhinaca kale lagu soo dhaweeyay ergeyga gaarka ah ee golaha nabadda iyo amniga ee midowga Afrika iyagoona sheegay inay taageerayaan dadaalada xal u helista arrimaha Soomaaliya markana wararka ka baxsan Soomaalida saraakiisha sirdoonka dawladda Itoobiya ayaa bayaan ay soo saareen ku sheegeen in koox isku xiran oo doonaysay in ay dawlad ku meel gaar ah ku dhawaaqaan ay ka hortageen sirdoonka waxay sheegeen kooxahan ay kala joogaan gobolka Amxaarada Addis Ababa Yurub ilaa Ameerika isla markaasna ay ka kooban yihiin siyaasiyiin saraakiil ciidan iyo suxufiyiin waxay intaasi ku dareen in kooxdu ay diyaarsadeen dastuur warbaahin iyo saraakiil howlgalka fulisa ha yeeshee ay fashiliyeen qorshahoodii ay damacsanaayeen Ciraaq waxay martigelisay wadahadal u dhaxeeya Iiraan iyo Sacuudi Arabiya waa madaxweynaha dalkaasi Ciraaq Burhaan Saalix ayaa sheegay in Ciraaq ay martigelisay in ka badan hal wareeg oo wadahadalo oo u dhaxeeya dalalka gobolka ku loolamaya ee Iiraan iyo Sacuudi Arabiya Mase Saalixi ma uusan bixin faahfaahin dheeri ah laakiin hadaladiisa ayaa u muuqda kuwo xaqiijin
xaqiijinaya warar hore oo sheegayay in wadahadallo noocaas ay dhexmareen labada dal hase yeeshee Sacuudi Carabiya iyo Iiraan midkoodna si rasmi ah uma uusan xaqiijin inay wadahadallo yeesheen. cadaawada labada dal ayaa sii xoogeysatay dhowrkii sano ee la soo dhaafay taas oo keentay in gobolka oo dhan uu qarka u saarmo inay ka dhacdo colaad dhan walba ah. warkii aad kala socoteen Radio Barawe dhageystayaal xilligan waa inaga inta tan iyo kulanti dambe amaanala. warbaahintu waxay keedisaa taariikhaha tagay. maamulku waxayna soo duldhigeen amar ah in afka Barawaaniga bataatanba aanan laga baahin karin Radio Barawe barnaamijyadeedana uusan ku bixi karin. sharciga kale oo lagu qaadi doono maamulka asiga cadeen doono ama dib ayuu madaxda uu ka soo sheegi doonaa laakiin hadda amarka madaxda ama amarka mas'uuliyiinta in la fuliyo ayaa sharci ah. Radio Barawe muxuu kugu xusuusan doonaa? yaa la dhahaa dadka Barwaaniga ah qolada Barwaaniga ama qabiilka ama dadka reer Koonfur Galbeed Soomaaliya oo qabiilkoodana Barwaaniga la yiraahdo luqadoodana Barwaaniga la yiraahdo ku nool gobolada Koonfur Galbeed Soomaaliya waa kuwii amara ka sareeyo ama wiirta madaxda in la qaato ayaa sharci ah idanka inay qaadin aad u baahantiin maadaama Barawe idanka aad joogtiin maamuladii soo maray Barawe keebaa guuleystay. waxaan jecelnahay bulshada reer Barawe in nabadda iyo isdhaxgalka ay ka faa'iideystaan inaad muujisaan nabad jecli dawladnimo. maanta farxadda aan qabno haddaan reer Barawe lama soo koobi karo adduunka inta aan ku nooleen Barawe oo airport diyaaradka soo degatay oo hadda la yiraahdo aniga maanta haysanaa waxaan is leenahay maanta maalinka qurux badan way iska jiri kartay laakiin hadda maanta maalin ugu qurux badan waayaan is leenahay anaga. xaqiiqdii waxaad ogtahay magaalada Barawe meelaha dega ee Barawe isbedelo badan ay sameeyeen. waa kee kan aanan ku guuleysan habka maamul ee bulsho. Umar laba dardaarna ku siina aad u fudud. dadkan aan mas'uulka u tahay waalidka hadda isleedahay qabiilka adiga ka dhalto u roonow adeer ku fikirtaas oo ku sameeyay dadka waxa iga sareeyay gudoomiyaha degmada Barawe maanta madaxweynaha degmada gudoomiyaha waaye. warbaahintu waxay keedisaa taariikhaha tagay. Radio Barawe cidna si gaara uma raaligeliyo ee runta ayuu ku hadaaqaa.